waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan xil wareejinta ah ee wasaaradda arrimaha gudaha uu wareejinayo maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo saaxiibkay ahaa laguna wareejinayo cabdinuur faarax saciid juxa oo walaalkay ah saaxiibna aan ahayn kalaasmeedna aan ahayn intii uusan aadin SSDF ilaa Brimo ilaa intuusan SSDF uusan aadin aan kalaasmeed wada ahayn maxaa cabdiraxmaan dhabancad waxaan leeyahay waan kusii saagootayeynaa waxaana kusii saagootayeynaa wasaaraddii barwaaqada ahayd baan kusii saagootayeynaa oo lacagta juxa waxaan ku soo dhaweyneynaa wasaaradda arrimaha gudaha oo ahayd wasaaraddii adigoo shacab aad ku taamaysid inaad dadka aad gaarsiisid qof iyo cod baan idigana kugu soo dhaweyneynaa wasaaraddan arrimaha gudaha waxaan u malaynaya puntland anigu waxaan ku jira asaasayaashii 98 baa puntland la asaasay oday weyn baa halka fadhiyo aan soo tiim ahayn oo kulan la yiraahdo oo ahaa raggii soo jireenada ahaa oo aan puntland wada asaasnay baa halkan fadhiya oo runtii taariikh leh uguna horeeyay baarlamaanka ugu horeeyay ahaa oo puntland lagu asaasay runtii gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo baarlamaanka puntland noqday anigana 99 baa la iga dhigay la taliyaha wasaaradda waa la igu yimaadaa waa la iga tagaa waa la igu yimaadaa waa la iga tagaa waa la igu yimaadaa waa la iga iska joogaa marka haddana wasiirka waan ku soo dhaweyneynaa wasiirkana waa la shaqaynaynaa dhabancadna waa la shaqaynay waxaana u qirayaa dhabancad dhallinyaruu ahaa waa shaqeeyey waa socod badnaa habeen baa la yidhahdaa dhabancad baan wasaaraddan imaadna xagee jiraa wasiirkii calooluu jira war odayga dhabancad yaa haya wuxuu jiraa meesha la shiriiba war dhabancad yaa haya wuxuu jiraa galdogo war dhabancad xagee jiraa bayluu saaka joogo sooxad dambeetaan imaanse saakana ayl buu joogay marka nin saa u shaqo badan buu ahaa waxaan rajaynaynaa inuu dardarti geliyo wasaaradda maaliyadda juxaana waxaan leenahay halka inuu dardarti geliyo insha allah maadaama agaasimaha guud oo uu yidhi waxaan u samayn doonaa labada wasiir saagootin iyo soo dhaweyn taasaan ka qayb geli doonaayo juxaana kusoo dhaweynayna kuna saagootiyi doonaa meesha la yihahdo maxaa cabdiraxmaan dhabancad maanta de waa saagootin iyo waxa weeye iyo soo dhaweyn wasiir waa kusoo dhaweynayna waana kula shaqaynayna haddii rabidno si hagar la-aana adigana meeshaad tagtid baan kuguna saagootaynaa taasna si fiican baan kula shaqaynayna haddii rabidmo dadkaana saakahooda faraxsan yihiin faraxaasaan ugu wada jira dhammaantay waana mahadsantii soo dhawaada shirkadda Daryeel Deegaan waa shirkad ka shaqeysa nadaafadda magaalada Garowe waxay shirkadu qaabilsan tahay qaadista qashinka dareeraha iyo adkaaba iyadoo kugu adeegaysa hufnaan iyo howlkarnimo goobtaada ganacsiga xafiiskaaga ama gurigaaga waxay shirkadu ku diyaarisay nooc walba oo haamaha qashinka lagu kaydiyo iyadoo shirkadu ka qaadayso fee aan badnayn haddaba aan wehel ka dhigano shirkadda nadaafadda ee Daryeel Deegaan si nalooga fogeeyo qashinka